بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكومة أنا قاعد أقول إن معنا نورية ياسين جامع. وحنا كقيب قادنا هي برنامج كأوهي هلية قاعد هنكله. وحنا كقيب قادنا دون إن شاء الله دي لهاي رادو برنامج كجاه اللي إنه هاي داود يحبلو استعماله. الأسبوع الجاي. بسم الله. مركب بعدين قضية يعني أنا كلا قاعد دونه ومحاجة بدأ وكان كريني استعمال شو الدو محك كلفية. فائدة الدوون أي قبله كجاري كران ما كاستعمالان محيس فائدة الدراء خلاص كلمان قبله الدودة يوم حالة جمار مكرا أو دودي هدي اللي إسكده أيو كالين تيدا قالي كرتا الحقيقة بكو بعد إن شاء الله كاد لنا يوم هاي دودة محا كان بقى هاي إلا حاجة بركو كان يعني استعمال الدودة كدور قضبان أو كلا قاعد دونا إن شاء الله marka koobaad gabadha waxa ku keena gabdha badan inay ku dayasho gabdha kale ama saaxiibadeedu ama isqaanay isticmaalada wadan inay ku dayato oo kulay saaxiibtinimadu raad isku yeelataa in marka saaxiibtinimada ku dayato ma inay gabadhani muxuu haayay kalsooni ayna ku qabin midabkeegan oo ay aaminsan tahay in gabadha ka cad ka teetelsan tahay ka caansan tahay iyo muxuu wax ku kalifi kara muxuu haayay gabadho in tala lagu siiyo in dawada ku gaari karto waxyaabo badan oo faa'iido ah inay muxuu ku heli karto sumcad iyo soo jiidasho inay gabadhu dawada ku heli karto ama gabadha kula taliyaan ama iyadu ku dayato ama ay culays ka dareento midabkeegan madow oo hada jeer la socoto gabdha saaxiibadeeda oo cadaa dawada isticmaalo cadcad taas waa waxyaabaha gabdhaha inta badan ku keena inay dawooyinka isticmaalaan haddaan ka hadalno midlan dawadu maxay faa'iido leedahay horta run marka laga wada hadlayo waxdaad is aaminsiisan mooyaan dawadu faa'iido ay leedahay oo la oran karo qodobkaasi ayaa la oran karaa faa'iido u leedahay gabdhaha dawada ما جرت واحد فائدة advantage laga helo laakiin gabadhu waxa ay muddada u horeysa ee ma taqaanay dawadan isticmaalayso waxay dareemaysaa gabadhii inay tahay gabadh midabkeedii qurux badnaaday oo qurux leh oo soo jiidasho leh oo waxay rabtaa qancin kartaa heli kartaa dad midlan wiilalo haday tahay haday qof kala tahay yani gabadh title meesar joogtay dareemi kartaa qurux badan waxay oo soo jiidasho leh waxay dareemi kartaa muxuu ahaa gabadhaas inay tahay gabadh ku dayasho mudan oo hablaha matalan inta badan aanka ah inay noqoto ay waxyaabaha faa'iidada ay gabadhu ku fikrayso inay ka helayso ay dawadii ku kale faa'iido ay u aragto dawada waxa badan faa'iido daradeeda waxa la ismootiinayo waa faa'iidadeeda laakiin wax faa'iido daradeeda ayaa ah wax cad oo la arki karo qofku marka koobaad wuxuu isticmaalaya waa kiimiko jirkaagii iyo adiga waxaad wajigaaga haato qaabkaaga haato waxaad isticmaalaysaa waa kiimiko taa waxa u dheer gabdhuhu waxay ku isticmaalaan marka wajiga laga reebo jirka intiisa kale inay baca ku xidhaan qof kiimika marsaday bacna isku sii xidhay waa la garan karaa waxyaabaha faa'iido darro ku dhacaya taas waa muxuu ahaa qodob waxay gabadhii ka baxaya waqti way gelinaysaa ay wax kale cibaado ku isticmaali lahayd dana kale ay ku qabsan lahayd ayay gelinaysaa inay daawadin isticmaasho waxa kale la kulmaan kaga baxaya gabadhii dhaqaale fara badan oo meelo kale ay u baahan tahay gelin lahayd ayay waxay gelinaysaa daawo kiimika oo jirkeedii waxyeelo mooyaan wax tar u lahayn waxa muxuu haayay qofka soo faa'iido darooyinka kale leedahay dawada dadku way ka daba timaadaa markaad muddada u horeysa isticmaasho ku qurux badnaato muddada dambe waxa ka daba imanaya finan baad yeelanaysaa taajash bay qofka ku reebtaa dhaawacyaa qofka aan jirkiisa ku dhacaan muxuu haayay soo baxoon qalsoomi dhiigroor fara badan gabadhu inaanay mabakhiyo waxaas aanay isticmaalin dadka badan ayna gali karin xilliyada kuleelaha inaanay socon karin inaanay muxuu haa dulqaad fara badan lahayn qof la kaftanto ama gacanta qabsado la taabto xoog loo taabtay dhiigroor soo joogsanayso waxyaabo fara badan ayay ku keeni kartaa sa gabadhii waxa ku dhacaysa hadhow toole finan iyo taashisha markay yeelato inay wajigeegiyo quruxda badnaad ka tusi kari weeyda hadhow toole oo daawadii iyo kiimikadii ay muddada badan isticmaashay ku keentay marka waxyaabo badan oo faa'iido darro jira dhaqaalahaagii baa kaaga baxay ad wax kale wax ku qabsan lahayd waqti baa kaaga baxay ad wax kale ku sameeysan lahayd waxa soo dhan iyo inaan muxuu haayay jirkaagii ad wax yeelaysay waa faa'iido darrooyinka oo aad u tiro badan oo intaan ninka sheeg karan muxuu haayay ku leedahay dawadu leedahay gabadha u keeni karto marka aan ka hadalno qodobka ahaa muxuu haa maxay gabadhu kaga maarmi kartaa dawadu waa laba qodob baan kala qaadanayo qodobka koobaad waa gabadh soo isticmaashay daawada oo hadda ama ka qoomamoonaysa ama rabto inay joojiso maxay kaga maarmi kartaa dawadii kiimikada waxa jira walaal muxuu ahaa waxyaabo fara badan oo aan natural creamiya herbal jira oo jirkaaga aan midabkaaga bedelayn wax dhibaato aan ku keeni karin muxuu ahaa kiimikana aan lahayn baa jira oo isticmaali karto
waxa jira muxuu haayay waxyaabo dabiiciina oo qalladina yaaleenta badan oo mataqaanaa wajiga soo saara kulay YouTube hadii la baro laga helaa barnaamijyo badan dad waxa ka sheekeeya oo way jiraan waxa jira muxuu haayay inta yani anu hada ku cayimi karo waxa jira gabadhu inay isticmaasho malabka oo kale waa shay aad u fiican oo qofka midabkiisa dhowra wax dhibaato oo ku leeyahay wax tar mooyana aan wax dhibaato aan ku keeni karin qurxina qofka kalarkiisa waxa kale oo isna jira muxuu haayay shayga muuska la yiraahdo oo isku jirka ka dhigaa skinka ka dhigaa mid jilicsan oo qurxiya caanaha oo kaleeto midlan kuwan muxuu haayay labeento caano fiican yihiin oo marka ciirta ay dhanaadaan fadhiistaan intaan ciir noqon kala bixin isticmaasho aad u fiican yihiin waxa kale iyaguna aad wanaagsan muxuu ahaa labeenta oo waji iyo jir iyo madax meel wada marisaba iyagu aad ugu fiican oo wanaagsan waxyaabaha kale ee jira waxa jira labaniyada oo kale markay engegan tahay inaad karin oo laaqado kaliya intaad qooshto waxyaabo kale caana iyo muus iyo haad ku darto liinta oo kale oo jirkaagii mataqaana haduu kokog iyo midnaanta aan jeedaayda kokog iyo waxa ay keento jirka skinka dhintay iyadu wax u tarta waxyaabahaasi waa waxyaabaha mataqaanayay natural dhibaato kaay daba imanaysa iyo taash ay ku keenayaan oo la og yahay ay jirin oo la hubo inay waxyaabo wanaagsan yihiin waxyaabaha kaga maarmi karta dawada midabkaaga aan bedelaynin wax muxuu haayay qayr oo ku saarmayana aanu jirin marka la hadlayna okay intaas waa gabadhii soo isticmaashay dawo soo isticmaali jirtay ee rabtay inay iska joojiso si ay u qayr minna waxay ku bedelata rabta gabadha rabta inay isticmaal bilowday hadda ama rabta inay hadda bilowdo ayaan iyadna jeclaan lahayn aan tala ka siiyay waxyaabaha dawo kaga maarmi karto gabadha rabta inay hadda bilowdo horta ma sha Allah waxaan oran lahaa iska diisan midabkaaga alxamdulillah kuma had ilaahay ayna isticmaalna waxyaabaha naturalka ah oo aan midabkaaga totally bedeli karin wax dhibaatood kala kulmaysaana aanay jirin oo qofku midna saliid buu leeyahay dawooyinka caynkaas isticmaaliyo saliid wajiga qalalana waxa isticmaal aan u baahnayn iyagu waxyaabaha kale ee gabadha imiga isticmaashay aan weli kiimikadii waxyaabo dhibaato ayna ku keenina waxay isticmaali kartaa iyaguna waa natural kan waa cream herbal oo aan waxba u dhimi karin waxyaabahenaas kale ee natural kan soo sheegay sida xabaasuuda oo kale qasilada oo kale waxyaabaha yani natural ka oo qofkina waxna u dhimaynin muxuu haayay kuna wanaagsan waxyaabahan kula talin lahaa gabdhaha inay isticmaalaan markay inay dawo isticmaalayeen dawadana de kulay faa'iidadeeda iyo faa'iidada faa'iido ma leh wax mala awaal qofku uu rajaynayo inuu ka heli doono markuu faa'iido keeno faa'iidadadeeda kulay waan ka soo hadalnay waxyaabaha in kaga maarmayna insha Allah intaas aan rajaynay barnaamijku intaas uu kulay inoogu dhan yahay insha Allah mararkan inuu heli doonaa waxyaabo kale oo inuu siin doonaa tala laakiin hadda waxaan leeyahay barnaamijkaas inoogu xiran waxaan leeyahay hadda iyo hadhow qoroboo ilaahay gaagan kale